shirkan waxaa looga hadli doonaa xaaladda South Sudan iyo xalka gaarista khilaafaadka iyo dagaalada ka jira dalkaas. dowladda federaalka Soomaaliya waxay kaalin mug leh ka qaadanaysaa dadaalada lagu nabadaynayo dalka oo soo jiitamayay tan iyo 2015 shirar dhowr ahna urur goboleedka IGAD ay ka galeen. amniga gobolku waa mid isku tiirsan. amni darrada hal dal oo kamid ah dowladaha ku bahoobay ururkan ka jirtana wuxuu saameyn ku yeelan karaa dalalka kale. dowladuna waxay kaalinteeda ka qaadan doontaa sidii nabad waarta loogu soo dabaali lahaa koonfurta Suudaan. magaaladan Addis Ababa xarunta waddanka Itoobiya waxaa hadda ku sugan madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka ah Riek Machar oo la doonayo in culays lagu saaro inay xal ka gaaraan rabshadaha xadgudubada wata ee muddo 5 sano ka soconaya koonfurta Suudaan. hogaamiyaasha dalalka urur goboleedka IGAD ayaa gelinka dambe ee maanta halkan ku yeelanaya shir degdeg ah oo looga hadlayo arrimaha ka taagan koonfurta Suudaan. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Addis Ababa si ay uga qayb galaan shirkan degdega ah ee IGAD. waxaana madaxweynaha lagu wadaa in hogaamiyaasha koonfurta Suudaan ee jooga halkan uu ku dhiirigeliyo in wada hadallada nabadda ee koonfurta Suudaan ay guuleystaan si shacabka koonfurta Suudaan ay u helaan nabad iyo nolol waarta. 2011 ayay koonfurta Suudaan waxa ka go'day dalweynihii Suudaan waxaana sanad kadib 2013 ee cagaha la gashay qalalaasa siyaasadeed kaasoo sababay in kumanaan qof ay dhintaan kumanaan ay ka barakacaan kadib markii madaxweynaha iminka jooga koonfurta Suudaan iyo hogaamiyaha mucaaradka isfahamwa siyaasadeed dhaxmaray. Ali Baashi Cabdullaahi magaalada Addis Ababa waddanka Itoobiya. Peace is coming to our region. Amen. These two brothers are linking themselves to bring peace to South Sudan. Thank you very much.